waxaa maalintii labaad xidhan wadooyin muhiima oo ku yaala magaalada muqdisho sababa aan la shaacin waxaana saaka shaqadii duqa caasimada laga eriyey taabit cabdi maxamed oo xilkaasi hayay 9kii bilood ee lasoo dhaafay. madaxweynaha soomaaliya ayaa cabdiraxmaan cumar cismaan oo loo yaqaano injineer yariisow oo ahaa wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalk u magacaabay gudoomiyaha gobolka banaadir iyo duqa magaalada muqdisho. saaka waa barigiina ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan dowladda ayaa amniga xarunta dowladda hoose kala wareegay ciidankii booliiska ee horay gacanta ugu hayay. haddaba si aan wax badan uga ogaano dhacdooyinkaasi isa soo taraya tan iyo shalay waxaa hadda khadka telefoonka ee magaalada muqdisho toos ugu jira wariyaha b b c da ibraahim maxamed aadan. ibraahim aad ayaad u mahadsan tahay, balna si wararkii ugu dambeeyey. cabdi xaafid, magaaladu waxay kala xiran tahay maalintii labaad. haddii aan dhegeystayaasha u sharaxno qayb ahaan ama amni ahaan ayaa magaalada waxaa markeedii horeba loo qaybiyey 2 qaybood. haddaan si kale u niraahno wadada wadnaha wixii ka xiga dhinaca loo tukada ee waqooyi waa daantan kalena waa wixii halkan ka soo xiga ama ka soo xiga dhinaca koonfureed. labadaas daamood isuma gudbi karaan tan iyo shalay. dadku waxay samaynayaan daantaasay ka imaanayaan, gawaarida waxay uga soo degayaan wadada, kadibna iyagoo lugeynaya ayay dhankan usoo gudbayaan. dadka halkan ka tegayana gaadiidkoodu ma gudbi karaan. marka labada dhinac waxaad moodaa isu socodku inuu aad u yaryahay. tan iyo shalayna waa la xadiday. ilaa haddana dowladdu kama aanay hadal sababta ay arintaasi u samaysay. ha yeeshee magaalada tan iyo shalay waxaa ka jiray xiisad siyaasadeed taasoo ka dhalatay khilaafka madaxda federaalka iyo maamulka gobolka banaadir ee xilka laga qaaday dhex maray. saaka waxaa lagu waabariistay iyadoo ciidamada ammaanka gaar ahaan kuwa gaarka ah ay la wareegeen xarunta dowladda hoose ee loo yaqaano Vision Governo, halkaasoo xarun ahayd gudoomiyaha gobolka. hore waxaa u joogay ciidamo boolis oo halkaasi ilaalo ka hayay. ha yeeshee ciidanka booliska waxaa loo sheegay inay halkaasi isaga tagaan. ciidamada gaarka ee dowladda ayaana amniga la wareegay. mar dambena waxaa soo baxday wareegto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Soomaaliya, waxaana gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimada muqdisho loogu magacaabay wasiirkii warfaafinta ee dowladda federaalka cabdiraxmaan cumar cismaan oo loo yaqaano injineer yariisow. madaxweynuhu wuxuu yidhi markii aan arkay soo jeedinta wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta, markii uu la tashi la sameeyey ama aan la tashi la sameeyey islamarkaana aan dhageystay talooyinka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka, waxaan u magacaabay cabdiraxmaan cumar cismaan oo loo yaqaano injineer yariisow gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimada. sidoo kale waxaa la bedelay gudoomiye ku-xigeenadiisii, waxaa lana magacaabay gudoomiye ku-xigeeno cusub. waxaa la magacaabay maxamed cabdulaahi maxamed oo loo magacaabay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee amniga iyo siyaasadda ee gobolka. sidoo kale waxaa la magacaabay xuseen maxamed nuur oo isna loo magacaabay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee maamulka iyo maaliyadda ee gobolka. sidoo kale waxaa loo magacaabay gabadha la yiraahdo basma cumar axmed gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo wacyigelinta ee gobolka. aadan sheekh cali fiidow isna waxaa loo magacaabay gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud. xogeyaha guud ee gobolka banaadirna waxaa loo magacaabay cumar cabdirasaaq xuseen. magacaabistani waxay timid xalay shir ka dhacay xarunta Vision Governo oo ay isugu yimaadeen gudoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka banaadir, waa gudoomiye ku-xigeenadii taabit ku xigay iyo gudoomiyaasha degmooyinka ee gobolka banaadir iyo dad laga soo xulay gobolka banaadir oo sheegay inay taabit u doorteen inuu yahay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimada muqdisho muddo 2 sano oo ku meel gaara. dabadeedna la gaarsiin doono in dadweynaha muqdisho ay soo doortaan cidda xukuumaysa. marka waxaa muuqata in arintaasi hadda soo gabagowday oo ugu dambeyntii madaxweynuhu uu shaqada ka cayriyay taabit islamarkaana uu magacaabay gudoomiye cusub. ilaa hadda taabit cabdi maxamed ma hadlin. b b c da isku day badan oo ay samaysay oo doonaysay inay kula xiriirto taabit cabdi maxamed way u suurtageli weysay. ha yeeshee magaaladu hadda way degan tahay. dadkuna waxay aad uga hadlayaan magacaabista gudoomiyaha cusub iyo xilka qaadista taabit cabdi oo la xusuusto in uu ahaa nin aad ugu dhow madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha 9kii bilood ee ugu dambeeyey ee xafiiska joogay intii uu ololaha ku jiray madaxweyne farmaajo markii la dooranayay 8 bishii Febraayo sanadkiina dhaafay 2017.